الله محله ومدن لبا سنو iyo bar ka yar suuqan soo celiyay anagoo nabada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika markii hore aan idin imid runtii waxay ahayd taageerooyinka ugu badnaa oo aan ka helay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda qurbaha jooga xaqiiqatan soo dhaweyntiinii markii aan airportka imid ilaa markii aan baxayay xaqiiqatan qof haray qof weyn iyo qof yar iyo gabdhaba ma jirin weli waxaan xasuustaa habeenkaas xafladda aan sameeynay dad badan oo aad u far badan in laga celiyo albaabka iyadoo 2,000 ku dhawaad ay ku jireen gudaha weli waxaan iloobeyn oo aan rabaa in aan raadino dhalinyaro ka noqotay xafladdaas inay gashay accident ama shil qaarkoodna ay aad ugu dhaawacmeen marka waxaan jeclaan lahaa haddii aan la hadli karo inay raadisaan kulankii habeenkaas xafladda aad ii samayseen runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad aan u xasuusto wax kasta aan ka wada hadalnay waa xaqiiq markii ugu horeysay waxaan ku hambaliyay sida ay safiirka iyo wasiirku ay sheegeenba inaad tihiin safiirro halkan noo fadhiya oo qof walba matalayo magaca iyo sharafka Soomaaliyeed runtii aad ka soo baxdeen kaalintiina oo la idin yaqaan inaad tihiin dad shaqaysta oo aan waxba baryin dad ganacsato haysta oo runtii wadankan contribute gareeyay oo shaqo abuuray Koonfur Afrikaanka dadka ahna aaminsan inaad tihiin dad runtii wadankan wax badan ku soo kordhiyay waan idinku hambaliyay waxaan idinku dhiirigeliyay inaad sii xoojisaan kaalintaas aad ku leedihiin oo lidinkaga yaqaan dalkan inaad tihiin dad aad iyo aad u wanaagsan wax badanna ku soo kordhiyay waa runtii wasiirka madaxweynaha saaragnay anoo arrimiina kala hadlaaya wuxuu yiri hadalkiisa waxa ku jiray sidoo uu yiri waxaan jeclaan lahayn dhiigga Soomaalida inuu dhiiggeena ku jiro wuxuu ka hadlayaa firfircoonida hal abuurka dadnimada kartida aad leedihiin iyo sidaas u ilaalisaan oo magaca iyo sharafka dalkiina iyo dadkiina aad u ilaalisaan marka waxa soo kala maqalno runtii waxa weeye waa wax ka duwan waxyaabaha inta badan maqalno inta badan waxaan maqalnaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin ama dalka Soomaaliyeed inuu yahay dal dib badan ama dad dib badan oo lagu sheego xaq jiro aan nafta bini aadanka aan qiimeen oo wax burburiya nafta aan qiimeen waxaana lagu sheegaa burcad badeedina nahay oo runtii maraakiibta maraysa xeebaheena aan qafaalano iyo qaxootiga dhalinyaro badan oo xabsi ku jira waxyaabo badan oo negative markaa maqasho runtii waxa weeye markaa maqasho wax wanaagsan oo tan oo kala ah waxayna siinaysaa yidiino cusub iyo rajo wanaagsan iyo runtii niyad wanaagsan ayayna siinaysaa marka waxaan ku dhiirigelinayaa mar kale sii wada oo sii laba jibaara maxaa yeelay qof kasta oo Soomaaliyeed oo wax wanaagsan sameeya wuxuu jidka u xaaray kuwa kale oo Soomaaliyeed maxaa yeelay haddaad xun tahay waxaa loo malaynayaa Soomaalidu inay xun yihiin haddaad wanaagsan tahayna qof kasta oo ka dambeeya gacmo furna lagu soo dhaweynayaa idinka kaliya ma aha jaaliyada kale waa arkay oo Soomaali ah oo aan arkay iyagana dadaalkooda aad u badan yahay oo madaxdooda ay aad u amaanaan waxa kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed oo degan Kenya iyo South Sudan iyo Suudaanta naftigeeda xaqiiqatan meelaha Soomaalidu ku badan yihiin anigu madaxdooda arko dadka Soomaaliyeed aad iyo aad loo amaanaa laakiin marmar waxa la isweydiin karaa haddii dibadaha aan saas ku nahay
maxaa gudihii ku dhacay waxa weeye gudihii naftigoodu dadku waa fiican yahay waxaa la rabaa hoggaanku inuu dadka toosiyo oo jid wanaagsan tuso hambalyadaas waxaan kaloo oo habeenkaas iigu dambaysa halkan aan ka wada hadalnay dardaaran anna waa ila dardaaranteen anna waa idinla dardaarnay aniga dardaaranka aan idinla dardaarmay waxay ahayd dardaaran aan ka helay madaxda iyo qeybaha kala duwan bulshada markaan weydiiyey aan iri maxaa loo baahan yahay inaan ka hadlo oo aan dadka aan rabaa inaan la wadaago waxay ugu yiraahdeen waxa aad uga hadashaa arrimaha midnimada naga liidata xoogaa waxaa nagu dhex jira xoogaa kansar yaraan cudurro yaraan nagu dhex jira ilaah naga daaweeyo marka nagu dhiirigelin in midnimada la xoojiyo waxyaalaha qabyaaladda ahna la iska fogeeyo marka waxaan sii tusaalooyin annagoo ummad Soomaaliyeed ah wax walba wadaagna dhaqan caado diin luqad aragti wax walba wadaagna iyo deegaanba yaa haddana dadkeen waxaad moodaa iyagoo wax badan ka midaysan wax yar oo ay ku kala duwan yihiin inay balbalaarinayaan مثلا waxaan kaga soo qaaday marka Afrikaanka hadda annaga Soomaaliya jooga oo gacanta naga siiya arrimaha amniga iyo guud ahaan qaaradda Afrika dalalka ku yaala waxa weeye waa dalal isku geeyay dad isku geeyay oo aan waxba wadaagin luqad aan wadaagin dhaqan wadaagin diin wadaagin maxaan ku yiraahdaa caado wadaagin saasay tahay waa naga horeeyaan oo iyaga waxna tarayaba oo waa kaas oo halkan aan joognaa oo South Africa ah oo saa sheegteen 12 noqodood looga hadlo iyo diimo badan maxay tahay sababta marka sababta waxay tahay wadamadaasi muddo dheer iyo dadkooda indoctrination ku wadeen ay hanuuninayeen ayna u sheegayeen waxyaabaha ku kala duwan yihiin iyo waxyaabaha ay ka midaysan yihiin isaga mid yihiin waxyaabaha ku kala duwan yihiin waxay ku qoraan far yar oo la akhrin karin markay ka sheekeynayaan waxay ku sheegaan wax aad u xun saas darteed yaa far yar loogu qoray waxa ay isaga mid yihiin oo aan jirinba far weyn iyo ku qoraan oo maxay tahay waxa ay farta weyn ku qoraan inay is ogolaadaan inay isu baahan yihiin inay wada noolaadaan annaga teena marka wax walba waa iska mid baahidina waa jirtaa in la wada noolaado marka kulli far weyn ku qoran karnaa marka laakiin waxay u baahan tahay in muddo dheer aan ka hadalno oo qof walba la gelinsiiyo waxa ku kala duwanahay ma jirto tan baahida marka iyaga waxay keeneen bacdama ay noqdeen dawlad baahida ugu horeysa waxay tahay inay yihiin qarankana loo baahan yahay dawlad difaacda inay jirto dawladdana waxay ku kala dambaysaa xeer iyo shuruuc iyo dastuurkaas yaa isku haya iyaga marka oo u sheegaya qof walba xuquuqdiisa iyo wuxuu leeyahay iyo baahida isu baahan yihiin inay wada noolaadaan oo haddii ay kala tagaan ay u yihiin halis cudurro abaaro iyo colaado marka annaga marka waxa weeye saas oo kale inaan ka hadalnaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waxa badan aan wadaagno waxa ugu muhiimsan ee tahay inaan wada noolaano laakiin inteena badan waxaan jecelnahay inaan la noolaano dad intay 100 sano ka hor oo reer hebel isku yiraahdo qof 200 sano ka hor yaa rabtaa inaad isku identify garayso oo aad la noolaato kii ku ag taagnaa oo aad kaliya u baahan tahay la sheekaysto oo la shaahdo waa u baahan tahay iyagu waxay yiraahdaan marka dadka Afrikaanka ah baahidooda iyo inay wada noolaadaan hadaa aad u beerley tahay waxa u baahan tahay nin xool leeyahay oo ka iibiyo caanihii
iyo hilibkii waa isu baahan tihiin marka maxaa yeelay caano kaliya kuma noolaan kartid labadooda wuxuu u baahan yihiin daawo wuxuu u baahan yihiin qof ka iibiya daawadii xoolaha qof ka iibiya abuurkii qof guriga u dhisa qof macallin ilmihii wax u bara marka inaan fahmnaa loo baahan yahay waxaan intaas u fahmi weynaa maxay tahay marka tusaalahaasaan waagaas idin siiyey waxaan idinkula dardaarmay midnimadu inay ka xoog badan tahay wax walba inaad tihiin dad isku maxaan ku raahdaa walaalaha wax walba wadaaga inuusan qabiil idin kala qaybin in aysan gobollo aysan idin kala qaybin inaad isu baahan tihiin magaaladan weli markaad joogtaan oo ajnabi ku tihiin inaad wada noolaataan inay khasab tahay oo wax alla wixii dhaqankii xumaa oo kala qaybinta iyo qabiilka ahaa aad ka saartaan taasaa idinkula dardaarmay idinkuna waxaad igula dardaarantay markaan idin weydiistay taageeradiinna iyo kaalmadiinna waxaad tidhaahdeen ilaahay ha kuu fududeeya hawshaasa u socoto adigana waxaan kaa codsanaynaa inaad noqoto qof ummadda u dhexeeya oo aan qabiil aadin haddii aad guulaysato in ummadda ammaanadooda aad u hayso sidii ilahay kuu ogaya aad u hayso waxay igula dardaarateen inaan sharafka soomaaliya aan ka hormariyo wax walbaba aan ka hormariyo sida haddaan maqlaayo dardaarankayga waa qaadateen oo sida hadda oo ninkii odayga halkan joogay uu ii sheegay in meeshaan qabiil uusan ka jirin oo dadka soomaaliya ay waala yihiin waa iga yeesheen anna waa idinka yeelay dowladdayda anigaan ugu sarreeyo aan madaxweynaha uga ahay kuma shaqeeya qabiil soomaala ay dooratay soomaala ay banaan baxday walaalayaalow sidii sharafta lahayd waagaad ii soo dhaweysteen marna ma iloobi karo waa idinkaga mahadcelinayaa mar kale xaqiiqatan ducadiinnii waa kacday laakiin meeshaan u tegey waxay ahayd oo aan islahaa laba arrimoodaa looga baahan yahay meeshaas ugu horeeya koo waxaa looga baahan yahay qofkaas inuu yahay qof daacada oo maxaanku idhaahdaa ku hogaamiyey si daacadnimo ah bacdamaa aad looga hadli jiray musuq maasuq iyo wax la mid ah iyo meel ay haraysay khilaafaad oo dowladdii istaagtaba uu khilaafaad ku imaanayay ilaa ay ka baxda meesha labadaas arrimood keliya moodayay meesha inay u baahan tahay laakiin hawsha intaas waa ka fog tahay hawshu intaas waa ka fog tahay maxaa yeelay muddo dheer yuu dalka burbursanaa qabyaalad waa jirtay waa xaqiiqa musuq maasuq badan waa jiray waxay keentay marka wax xun iyo wax fiican inay isku qasan yihiin aadan kala garanayn oo structurekii dowladnimo capacity usan jirin maxaa yeelay qofkii waxaa lagu geenayay meesha qabiil iyo qabyaalad yaa lagu geenayay dhaqankii baa saas ahaa marka looma fiirinayo qofkan shaqada muu qalmaa merit ma yahay shaqadii aqoonteeda ma leeyahay kartidii ma leeyahay loo fiirin mayn waxaa loo fiirinaya qofkan kula heeb ma yahay hadda qofkaas meeshaasi la geeyey qof u qalma ma aha waxa weeye marka in aan bedelno culturekii oo kow aan xaqiijinno dadka shaqeeya capacitygooda kadibna ha joogaan meeshoodii laakiin aan ku dul dhisno capacity kale ilan dad soomaaliyeed weeye muddo ka shaqaynaya meesha meelaha ay ka halaysan yihiin ama ay ka dabacsan yihiin weakness ka jiro inaan xoojinno oo aan siino pillars kale udubdhexaadyo kale macnaheedu waxa weeye aan ku soo biirino dad aqoonteedii khibraddeedii leh oo aanan ku imaan qabiil markay wax lumaan oo weliba la wada leeyahay dadku waxaa la rabaa isku si inay uga danqadaan waxaa la wada leeyahay dowladnimadu iyo qaarnimadu waa wada leenahay runtii muddayna burbursanayd haddaan rabnaan soo celinno waxaa la rabaa qof walbaba inuu qaybtiisa ka qaato uu kaalintiisa ka cayaaro oo uu juhdi geliyo kow waxaa ka ah inaan xoojinno qarannimadeenni oo wiiqantay aad u wiiqantay
waxaana wiiqay midnimo la'aan, waxaa wiiqay qabyaalad iyo kala qaybsanaan, waxaa wiiqay shisheeye oo ka faa'iidaystay dhexdeenna ka faa'iidaystay. inaan soo celinno yaa loo baahan yahay. quwadeennii dowladnimo inaan soo celinaa loo baahan yahay. quwadda dowladnimo waa tan lagu dhiso qarannimada. inaan soo celinaa loo baahan yahay. baadigoobkeedaan ku jirnaa oo ay ugu horeyso siyaasadda aan ka leenahay amniga, oo idinku naftigiinnu haddaa halkan joogtaan iyo kii Soomaali jooga iyo qof walbaba uu qayb ka ahaado baadigoobkaas aan ugu jirno dowladnimadeenna inaan soo celinno iyadoo xoog leh oo sharaf leh. arrimaha amniga wax badan baan ka qabanay, waxaan ka wadnaa reform, isbeddel yaan ka wadnaa annagoo runtii xoojinayna tayada ciidankeenna, tiradoodan xaqiiqsanayna. waxaan ku guulaysanay inaan siino mushaaharaad joogto ah intii aan joognay, ilaa markii dambe aan nidhi bal aan hubsanno cidda aan mushaharka siino oo aan tirakoob dib ugu noqonnay. waa dhici kartaa inay ka timid maxaa yeele dadku ma jecla isbeddel. isbeddelku waa wax xanuun badan. dadkii inaysan jeclaysan isbeddel qaarkood oo ay abuurtay xoogaa dhibaatooyin ay abuurtay. laakiin meesha u soconnay waxay ahayd inaan hubsanno ciidanka aan u baahannahay howlgalkiisa, ciidankaan u baahannahay tababarkiisa iyo qalabkuu haysto. ma aha inaan mushahar u weyne, ma aha. labadii sano la soo dhaafay ilaa hadda waa siinaa mushahar joogto ah. qofkii isrejistareeyey oo sameeyey biometrika sameeyey oo la xaqiijiyey inuu yahay qof ciidanka ka tirsan oo meeshii loogu talagalay jooga. waa sax khaldad way imaan karaan, maxaa yeele capacity insaan idinkuu sheegay capacity ma xoog badnaa, khaldad waa iska imaan karaan. laakiin intentionkeenna ama ujeedooyinkeennu waxay ahayd in aan helno ciidan aan ku tashan karno, inaan helno. siyaasaddeenu taasay ahayd. hawshaasna way socotaa. la dagaalanka argagixisada sahal ma aha qof raba inuu isdilo oo naftiisu huro. wuxuu rabaa naftiisa ku bixiyo. qofkaasi wuxuu ku dili karaa dadka mindi, wuxuu ku dili karaa qofka hadduu soo dhigtay oo uusan rabin nolol rabin wax kasuu isticmaali karaa. maxaa yeelay caqiidadaa ah. waxaan ka abbaaraynaa caqiidada marka. waxaan ka abbaaraynaa dadkaasi saan maskaxdooda u bedelin lahayn. laakiin sahal ma aha qof raba inuu dhinto dadka aan laga dhex garanaynin oo qaraabada ah oo kuwa eg. sahal ma aha. taasna waxaa laga rabaa markaan leeyahay baadigoobka dowladnimo khaasatan amniga qof walbay saarantaha baadigoobkaas. waxaa la rabaa qofka Soomaaliga u dhow inuu sheego. wayna bilaabatay hadda, maxaa yeelay waxaan arkaynaa dad warbixinna siiya, waxaan arkaynaa dad geesinimo sameeya oo sheega dadka waxaasoo kala sameynaya. hawshaasi runtii waa qayb ka mid ah waxa dadweynahan ka rabno inay qayb ka ahaadaan amniga. runtiina waa hawshaas meel fiican yay noo martay. dhismaha hay-adaha dawliga ah iyo naftigeeda waxaa weeye baadigoobka aan ku jirno inaan adkeenno institutionskeena. dowlad kasta waxaa lagu qiimeeyaa xooggeeda iyo awooddeeda inta institution u dhisan iyo dadka u shaqeeya capacitygooda iyo aqoontooda iyo sida loo xulanaa inay yihiin dad fiican oo iimaan leh oo aanan corrupt ahayn oo wanaagsan oo shaqadii lagu aamino siday tahay uga soo baxaya. runtii hawshaasna waa ku jirnaa. waxayse qaadanaysaa muddo bacdamaa dowladnimadeenna ee burbursaneed muddo aad u dheer. hawshaasna waa ku jirnaa inaan dhisno hay-adaheenna. kobcinta dhaqaalaha iyada naftigeeda siyaasad fiican oo comprehensive ah yaan ka leenahay. dhaqaalaheennu waa kobcay inkastoo dee dalku uu yahay dal fakri ah oo meesha aan rabna ay tahay inaan gaarno dadka curyaamada ah iyo dadka aan shaqaynin in la gaarsiiyo kaalmo mayna gaarin. laakiin waxaan ku guulaysanay intii aan joognay oo aysan hal bilna ka dabamarin inaan siino mushaaharaadka shaqaalaha dowladda u shaqeeya oo rayidka ah iyo ciidamada qalabka sida.
taasna waxay ku timid la dagaalanka musuqmaasuqa oo runtii aan ku bilownay oo runtii noo ah wax ugu muhiimsan argagixisadu waa dhab inta ay soo qaataan baabuur ku soo cabayaan intaasoo miinooyin ah ee dad shacab ah oo waxba garabsan ku laayaan ama waxaa laga yaabaa qof argagixisadaas ah inuu qof u dilo qofka corruptedka ah ama corruptionka ah oo qaata laaluushka ama hantida ummadda dhaca waxba kama duwana qofkaas waxba kama duwana maxaa yeelay qofka hantida dowladda ku takrifala oo wuxuu leeyahay kala u isticmaala oo aan ixtiraamin nidaamka iyo sharciga wuxuu burburiyay not systemka kaliya ma aha intaasoo milyan oo qof iyo noloshooda wax ka hadlayay ilmihii iskoolka aadi lahaa waxbuu ka hadlayay maxaa yeelay xoolahoodii u qaatay hooyadii ama gabadhii dhan lahayd oo isbitaalka laga bixin lahaa daawada yuu ka qaatay jeebka gashaday marka jidkii la dhisi lahaa iyo guud ahaan adeegii dowladda ay ummaddeeda siin lahayd yuu hor istaagan yahay marka waa cudur ka mid a cudurrada burburiyaha ee nidaamka dawliga ma aha qofka keliya ma aha qofka wax dilaya keliya ma aha qofka hantida ummadda qaata oo ummadda ay ka dhaxayso qaata waa ka daran yahay maxaa yeelay wuxuu saameyn ku leeyahay oo negative ah intaasoo milyan oo qof horumarkooda marka runtii dhismaha dhaqaalaha meel fiican ayay noo maraysaa waxaan gaarnay ilaa hadda caalamku uu noo aqoonsado inaan nahay dowlad hufan world banka iyo IMF-ka ay grantsna siiyaan iyo European Unionka oo direct budget ah ay qiraan in dowladdan ay tahay dowlad hufan oo transparency leh oo nidaamsan oo qaabkii ay yaqaaneen ku shaqaysa oo nidaamsana waxa intaas dheer siyaasadda arrimaha bulshada oo aan rabno runtii adeega ummadda inaan gaarsiino ay koow ka tahay waxbarashada ummadda waxa ugu horeeya oo laga kobciyo waa aqoonta weeye waa sax waa in wax la dhiso horta oo infrastructure-kii la dhiso laakiin maxaa lagu dhisi infrastructure-kii waxaa lagu dhisi aqoon yaa lagu dhisi siduu professorka sheegoo kale waxaan la wareegnay 24 iskuul oo aan doonayno intooda badan inay ahaadaan iskuulle farsamo oo lagu barto waxyaabaha dalka horumarkiisa iyo dhismihiisa qayb ka noqon kara qayb ka qaadan kara dib u dhiska dalka waa iyadana waxaan doonayno baadi goob aan ugu jirno dalkii waa burburay annagaana burburinay waxaan bilownay barnaamij la yidhaahdo isxilqaan yaan bilownay oo aan ku bilownay meelihii la yaqaanay madxafka qaranka tiyaatarka maktabadda qaranka iyo taalooyinkii oo dhan inaan dib u soo celinno aan dhisno annagoona kaalmo shisheeye helin oo isu xilqaamayna kulligeen qofkii ku bixin kara xooggiisa iyo dhidkiisa qofkii dhaqaalo ku bixin kara maxaan ku yidhaahdaa iyo qof alla qofkii wax ka geysan kara hawshaas meel fiican ayay noo maraysaa waxaan doonaynaa runtii in aan gaarsiino fariintaas idinka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ha u badnaadaan ee ku nool diaspora ku nool inay wax ku darsadaan dalkooda waa rabtaan dal dhisan dal qurxoon waa rabtaan dal sharaf leh waa rabtaan dal dowlad adag leh waa rabtaan laakiin wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay wax gaar ahaan anigu aan u baadigoobi karan maaha waa wax kulligeen loo baahan yahay inaan qayb ka qaadano qayb lixaad aan ka wada qaadanno sidii dalkaasi meeshuu u taagnaa aan hore uga qaadi lahayn hawshaas waa bilaaw waa urdun waxaan rajaynaynaa dalkao dhan inaan ku dhisno warshaddii ugu horreysay oo aan qalabkeeda ka soo saari lahayna waa furnay mudday xirnayd qalabkeeda waa la furfurtay intaan imaan ka hor meel yay iska taallay hadda alxamdulilaah waa isku celcelinay dhib badan baan u marno hadda way shaqaynaysaa oo wax soo saar ayay leedahay waxaan doonaynaa dalka inaan ku dhisno intayna la gaartaba hadduu ilaah yidhaahdo waxyaabaha aan rabno aan higsanayno oo iyadana sida baadgoobka aan ugu jirno waxa weeye dadkeenu waxay u baaba'aan caafimaad xumo iyo cudurro
محايا الفقر وابدين هاي أولاد وابدين هاي دولدو دلال كيدو runtii dhanka caafimaadka waxaan gaarnay inaan la soo wareegno laba isbitaal Martini iyo isbitaal Banaadir inaan la soo wareegno intaas waan ugu yartahay waxaan rabnaa inaan gaarno ama gaarsiino dalka oo dhan gobolada dhan degmooyinka in dadku ay helaan maxaan ku yiraahdaa dhakhtar iyo isbitaal lacag la'aan hadduu Ilaahay yiraahdo waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay oo aan rabnaa inaan kor u qaadno wacyiga dadka aqoontooda wacyigeena inaan kor u qaadno wadaniyadii aan soo celino ummadda Soomaaliyeed waxay saamid yihiin aan xoog saarno waxba kuma kala duwanin waxaan ku kala duwanahay waasaan in sheegay oo 200 sano ka hor dhintay yaa rabtaan inaan la noolaataan nin dhintay waa hore kii hadda joogay martaan la noolaataan oo walka ah marka dadka wacyigooda inaan kor u qaadno oo Soomaali inay tahay dad homogeneous ah oo ah dadka magaciisa dalka in la yiraahdo wada saas ma jiro adduunka annaga waxaan nahay hal qowmiyadaas magaceeda dalka la yiraahdaa dalkaasna waa dal khayraad badan dadkiisana waa idinka oo hadda cid walba leedahay waxaan u baahnaan lahayn dhig Soomaali oo kulul in lagu shubo marka wacyiga dadka inaan kordhino qabkoodii aan kor u qaadno wadaniyadoodii aan kor u qaadno waa dhab ummad markay muddo dheer ay ku jirto dagaal sokeeye qabka hoos u dhaca oo dadku kalsoonida ka lunta mar waxa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dawladda Hiblaaga qaadanaysa war adiga hadaa noo sheegay dalkaaga loo qaadanaya adaa noole adigu hadaa isdiibto ama aad dhimato waa sax wala qaadan dalkaaga dalka dal fiican weey laakiin hadaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanaya markaas dhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof Soomaaliyeed ku nool yahay dalkiis lama qaadana waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shay adeegsado waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo wareejisano waliba waa jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo wareejisano dalkeena dal kale malihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaan ku dhimanayna qof walba waqtigiisa dhaafayna ma jiro marka niyada khayr u sheega in malaqi karta malaha dacar Soomaaliya dacar weey waan isku dayay meeqasana isku dayay dadkii naga horeeyay waxba garanayeen oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo wadamadii anaga Afrika ugu horeeyo xorriyad qaataana Soomaali lagu ma soo dhaco qabkiina kor u qaada kalsooniga kor u qaada hadii ay jireen madax aad shaki ka qabtaan walaa shaki anaga qabina anaga in ka hor dhimanayna anaga diyaar u ah inaan ka hor dhimanno laakiin hanaga harina hanaga bixin dagaalka